qaar ka mid ah guddida deegaanka Cali Saahid ee gobolkani Togdheer ayaa cabasho ballaaran ka muujiyay heerka cusub ee deegaankaasi isla markaasina waxa ay carabka ku dhuftay in aan wadi karin mas'uuliyadda deegaankaasi heerka cusub waxaana sheegay in si degdeg ah wax looga qabto arrinkaasi uqaal waxgarad salaadin ayaa dhaliil xoogan dul saaray hoggaanka kuleeda iyo inuu gabay shaqadiisii wana kuwa iyagoo amuurtaasi ka hadlaya inay yaro shalay dhashay oo 20 jir inuu yiraahdo barkadaada kadikeeda ka soo bixi maaha dariiqa shaqaystay ama aan u leenahay maaha dadka wixii heshiisiin karayaba heshiirayaba ayaa la isu keenaa oo la yiraahdo ku wada hadla inay ka yarineen nooma yimaadeen rag baa dabada ka wadantay oo loo keenay waxaan u leenahay meesha hadii wanaag laga doonayo iyo hagaag annaga ila noo yimaado ninkii hore wuxuu xubeeyay hadii la tusoo laydo waxa soo qarribay oo xubeeyay ogol baan ku dhig laakiin nin wax qarribay oo wax xubeeyay maaha hadii maamulka iyo xukuumaddu ay ka doonayso meesha hagaag inay noo timaado nala hadasho ayaa waajiba annagu midna ma naan bedelin imika inanka yarin inaanu ogol lahay maaha waa nin aanu foostarka bay isqabsanayna waxaanu leenahay inanka cidimo ogola deegaanku waxa weeye cidii uu ka soo cawdo ama uu yiraahdo de wixii uu ka soo cawdaba la bedeli jiray waxa weeye wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynaha iyo qaranka intaba waxaan u sheegnay shanta nabadgelyadaba in arrinka wax laga qabto inanka yarna laga kaxayo waa nin aan calooshiisa fayoobeen waa nin aan deegaanka isku hogaamin karin waa nin aan la maamuli karin gobolka Togdheer madaxdeeda dhammaantii ka tira leegtahay way ka waraysaa nabadgelyaduna way tagto maalmo dhabay arrinka wax laga qabto ceeb kale ma jirto waxaan leeyahay wax laga qabto haddii gobolka Togdheer madaxdeeda wax ka qaban weydo qarankay gudbi wax bedeli kara inuu guddideeda dhisan tahay oo maamulkeeda dhisan yahay oo deegaankeeda sugul yahay wax bedeli kara oo bilow aadan ahayn iyo guddi kala rogi kara ma jiraan waxaana ka tashanan lama marayso ninka meesha annaga yaa naloo dirin yaana lagu soo riixin hadday hawl kala tahay midna waxba yaanu ka qabanin intana annaga nabadeeda hayna cid kale ma yahayn marka run la doonayo ha loo dhaga nuglaado oo waxa laga qabto waxna la yidhi geel aan qaylo lahayn lama dhiciyo baa la yidhi aanu sheegaynaa taliyaha qaybta iyo barasaabka iyo maayirka iyo shanta nabadgelyadaba Cali Saahid inay wali hawsheedii sidii isaga la raran tahay maayirku wuxuu qaban karaa ama wax ka bedeli karaa marka guddidu iyo deegaanku ay keenaan magaalada ama gobolka ay keenaan cabasho waxaanu leenahay annagu maayirka hawshiisii uma taalay ma haddan idan kan yari wuu iska tagi lahaa waxa meesha ku haya oo warqad u qoray ina muraadna hadaanu nahay guddidii Cali Saahid iyo deegaankeedii iyo mujtamacii qofaanu annagu dambiilo u aragno gobolka keeno ama u keeno xafiiska maayirkaanu keeno mooyo qof uu iska bedeli karaa sharci uma leh ninka ina muraad waa ninka warqada u qoray ee yiri hayr baa tahay ee ka dambeeya ninkan Cabdulaamin Cabdullaahi Maxamed iyo Saciid Cali Cismaan Xalays telefishinka caalamiga ee Gobonimo TV magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer